shirkan jaraa'id aan u qabtay waxaan ka hadlayaa xanuunkan saameeyay dhammaanba adduunkii oo dhan fayraskan ayaan arrimihiisa ka hadlayaa oo haddaan reer Soomaaliland nahay aan weli lagu dhaqaaqin tallaabooyinkii iyo arrimihii looga baahnaa inkastoo la soo jeediyey baaqiyo fara badan wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ka hadashay oo digniino fara badan ka bixisay laakiin weli waxa muuqata inaan lagu dhaqaaqin arrimihii laga maarmaanka ah coronaviruska lagaga hortagi lahaa sida isku imaatinkii oo sidiisiiya hadday tahay hudheeladii waaweynaa hadday tahay majlisadii hadday tahay meelaha isku imanaya weli waa sideedii ta ugu sii daran in ka dardaarmaya ee aan xukuumadda Somaliland aan u sheegayaan ku adkaynayaa waxa ay tahay diyaaradihii ka dibadda ka imanayay oo weli sidoodii u socda caalamka oo dhan waxaynu ognahay in la joojiyey wax alla wixii diyaaradihii iyo isku socodkii xuduudaha dalalka iyo in la joojiyey xataa magaalooyinka dhexdoodii maanta adalkasi caasimadihii ugu waaweynaa adduunka u hawanay weli innaga inoomay dhaadhicin arrinkaas waxaan leeyahay xukuumadda Somaliland war khatar baynu ku jirnaa inta ay diyaaradaha dibadda ka imanaya dalka ku soo degayaan weli khatar baynu ku jirnaa waxaan fahmi lahayaa laamiga sababta loo joojin lahayaa diyaaradda Ethiopia diyaaradda Flydubai waxaa loo joojin lahayaa ninkii shalay London ka yimid ayaa maanta kula jooga Hargeysa jooga oo Boorama jooga Gabilaa jooga oo magaalooyinka oo dhan jooga sideen wax uga hortagi karno iyadoo aynu arkano maalmahan oo dhan waxa la sheegay in ka hortag la samaynayo oo karantiimo la samaynayo karantiimadii waxba kamay suurtoobin kamana hirgelin ilaa imiga waxaan hubnaa in rag fara badan oo dibadda ka yimid ay magaalooyinka soo galeen waxaan ku dardaarmaya oo xukuumadda golayaasha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka hay-adaha ku shaqada guddidii loo xil saaray ka hortagga coronaviruska waxaan leeyahay hal la xidho xuduudihii weli waa la isku socdaa haddiise aynu sidan ku sii soconno weli khayr baynu ku jirnaayoo ilaahay subxaanahu wa tacaala weli wuu inaga ilaalinaya oo weli ma hayno xataa qof lagu sheegay kuma hayno Somaliland laakiin haddii tallaabooyinka imiga ay sidaa u sii socdaan oo diyaaradaha imanaya ay imanayaan waxa weyn halis baynu ku jirnaa waxaan leeyahay haddii dadweynaha laga fikirayo caafimaadkooga iyo mustaqbalkooga diyaaradaha waa in la joojiyaa xuduudda Somaliland ay la leedahay wadamada kale waa la sheegay oo waa lagu dhawaaqay xalima habeen hore hadina hirgasho weli wajaaran way furanta aan soo jeedinay dadweynaha iyaga si gaaraan u leeyahay war dadweynuhu arrimahan ha dhageysanina sida u qaata xukuumadda waxaan leeyahay duulimaadyada dibadda hal la joojiyo hal inaga joojiyo bal ilaa muddo inta hawshan dhan u dhacso intaasaan ku soo gabagabaynayaa